الحين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. حلقة maanta waxaan u qabanayaa shirka jaraa'id waxa weeyaan alla bari aan xagga Ilaahay barino inuu abaaraha naga dulqaado iyo dhibtan abaaraha moogtahay dadkeena dad iyo dunyaba lagu madhay Soomaaliland ka taagan iyo dalalkan kale jaarka nahayba marka inaka waxa laynooga baahan yahay 24 saacadood masaajidadii waynu ka barinaa Allahumma aqisnaada baynu haynaa laakiin wayna la nimaadnaa acmaasha laynagaga aqbalayo ducadeena oo ah inaynu ka dagaalano ama suurino cadaalad darrada waxaad arkaysaa maanta raggii maanta madaxda u ahaa wadanka ama mustaqbalka aynu ka sugnay ama xisaabta haystay ama xukuumadba haday tahay in ay dulmi ay ku dhaqmiyaan iyo cadaalad darro imika waxaad ka soo qaataa xisbiga ucid oo ku astaantiisu ay tahay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo isagii aad moodid inuu cadaaladaba uuna moogtahay astaanta u ah uu dhinac ka marsan yahay Jamaal Cali Xuseen waa musharax Soomaaliland oo dhan baa og adduunka oo dhan baa ogaa sidii ay ku galeen iyo heshiiska ay wada galeen maantana in la yiraahdo Jamaal musharax maamo golaha dhaxib kuma jiro daw cadaalad darro ilaahay muxaa hadaynu iska suurin weyno iska qaban weyno walaalkeena ugu nasteexin weyno inuu cadaalad darrada ka joogo oo moogtahay wax ilaahay naga aqbalaya ma jiro abaartana way nagu sii dheeraanaysaa marka waxaan leeyahay waxa jiray maama yar baan soo qaadanaya ninbaa wan weyn buu keenay saylad wankaas ayaa ninbaa yimid markaa uu yiri iga iibi markaa uu ka iibiyo markuu lacagta ka qaatay xarig doono markaa mid kale uu yimid intuu xarigii ku maqnaa markaasuu kii kan la yiri iga iibiyo kii kalena wuxuu yiri xarig doono kii saddexaad waa hadana ka iibiyay markaasuu kii saddexaadna ku yiri xarig doono saddexdii xarigay wadaan bay wankiis ku la yimaadeen nin walba wuxuu leeyahay la iga iibiyay wala iska isku geey kii Ingiriiska aba weydiyo yiri wankan waa ninka markiisa haadi kana markiisa kana markiisa markaaba Ingiriiskii hakinkii ayaa yiri war mala waxaan iibinay wan ayo wankii intuu ka wareey bariis intuu sare u qaaday ayuu arkay markaasoo kii u turjumaanayay ku yiri muxuu xaakinku wankayga sare u qaadaya markaa wiiru damacay markaa wiir u sheego imikuuba iibiyayde markaa uu cid waxaad moodaa in kolba qof laga iibinayo imika bay u tahay moogtahay iib markaa waxaan idin leeyahay war Ilaahay raxmadda inoo furay Faysalow Ilaahay baa risqahaya hogaamiya tahay wadanka waxa aad la doonayay inaad madaxweyne ka noqdo hogaamin cadaaladda ku soo dhawow oo ninka Jamaalna xisbiga iska burburinina waa xisbi qaran xisbi qof quri u leeyahay maaha Soomaaliland oo dhan baa ilaashanaysa mid muxaafid iyo mid mucaarid baa ilaashanaya marka waxaan ku leeyahay oo aanu tale ku soo jeedinayaa in Jamaalna waa musharax inaad xal ku dhameysataan si fiican oo moogtahay wanaag ku jiro oo xisbigiina aad wadataan oo aad iska daysid cadaalad darrada iyo kolba qofka soo gala iyo maxkamadda hal isla galo waa markii labaad iyo markii saddexaad kulba la leeyahay u cudbaa maxkamadda isla galaya taasina waxaan leeyahay waa xisbi qaran xisbiga ka ilaali waxa kale oo halkan kaga yara darsanaya shalay toole arintii xukuumaddu ay ku dhawaaqday ay tiri dib baan u dhiganaa doorashooyinka Hargeysa ama Maroodi Jeex oo ognahay waxa cimaarada ka dhisan aynu ognahay ma ogtahay maanta mooysaha in lagu weysaysto saddexdii gobol ee kale ee loogu dhimanayay dhibaatada iyo gaajada intaaba waa laga wadeeyay waxa maanta Maroodi Jeex looga joojinaya waa dhaka kale oo la doonayay doorashada wadanka Soomaaliland laga qaban taasina Soomaaliland khalkhal lagu galiyo maaha maanta Soomaaliland way israacsan tahay waxaan leenahay xukuumadda iyo cidda dabada kaga jirtana war arinta ka fiirsado doorashada waqtigeedii iyo in dib uga dhicina la qabto hadii la doonayo Soomaaliland inay israacdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh